sida la socotaan wasaaradda hawlaha guud dhulkii guriyinta Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka mid tahay wasaaradaha dakhli soo saarka u qaabilsan qaranka waxay wasaaradda hawlaha guud dhulkii guriyinta qaranka uga mas'uul tahay dhammaan hantida maguurtada ee kala duwan sida guryaha bakhaarada kaalmaha shidaalka iyo meheradaha ganacsiga ee dhammaan ay dawladdu leedahay bishii koobaad ee sanadkan 2022 wasaaradda hawlaha guud dhammaan waxay wacyigelin u dirtay dadka ku jira hantida maguurtada inay soo bixiyaan kiradii qaranka ku lahaa ee ku waajibtay bishii koobaad ilaa maanta oo aynu marayno bishii 8aad dhammaan dadka ku jira hantida maguurtada aan kor ku soo xusay way ka dhaga adeegeen inay soo bixiyaan kiradii dawladda ku waajibisay wasaaradda hawlaha guud waxay wacyigelin dadweynaha u kala marisay dhammaan idaacadaha kala duwan TV-yada kala duwan iyo baraha bulshada iyadoo sifo kasta oo lagu gaarsiin karayay in kirada la soo bixiyo ay wasaaraddu samaysay halwadeennada waaxda guryaha wasaaradda hawlaha guudna guri kasta iyo kaalin kasta iyo bakhaar kasta iyo meherad kasta ay u geynayeen kiradii ku waajibtay si ay u soo bixiyaan kiradaasoo lagu shubayay xafiisyada cashuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda bishii 8aad kowdeedii wasaaraddu waxay u qabatay 6 cisho oo kama dambaysa oo qof kasta oo ku jira hanti maguurta sida guri iyo bakhaar iyo kaalin shidaal iyo meherad ganacsi inuu soo bixiyo kiradii ku waajibtay muddadii way dhamaatay 6 bishay ku ekayd wasaaradda hawlaha guud waxay qaadaysaa maanta tallaabadii ku waajibtay kiradiidkii guryaha dawladda iyo meheradaha iyo bakhaarada dhammaan guri kasta oo aan kira soo bixin maanta dhammaantood waa laga wada qufulaya wixii ka dambeeya ee qufulka qofkii ku soo bixin waayana qof kasta guri dawladeed ku jira oo kiradiid noqday oo meherad ganacsi ku jira oo kiradiid noqday bakhaar dawladeed ku jira oo kiradiid noqday kaalin shidaal ku jira oo kiradiid noqday wasaaradda hawlaha guud dhammaantood way ka saaraysaa waxaanu kama dambays wargelin u diraynaa qof kasta oo gurigiisa laga qufulay maanta ama kaalintiisa shidaal ama meheradiisa ganacsi oo maanta qufulka lagu fuliyay oo talaabada wasaaraddu ka qaaday hadaad muddo 5 cisho gudahooda kirada ku soo bixin weydo muwaadin waa laga wareegayaa hantida maguurtada dawladda kaga jirto ama guri ha ahaado ama bakhaar ha ahaado ama kaalin shidaal ama meherad ganacsi muwaadin gurigaad ku jirtay meheradaad ka ganacsato iyo kaalintaad ka ganacsataaba waa hanti qaranku leedahay wax laga qaadaana waa wax yar guriga ugu weyn wasaaradda hawlaha guud waxay bishii ka qaadaa 150,000 waxa ka qaalisan maqsinka yar ee magaalada Hargeysa ku yaala iyadoo tirada cadadka inta leeg laga qaadayo haddana muwaadin caruur baa kuugu dhaqan salaad ilaahay ku dhex tukataa salaadaada iyo caruurta kuugu jirtaba ku dhex xalaasho xaraan bay kugu noqonaysaa adoo guri dawladeed iyo bakhaar dawladeed ku jira iyo kaalin shidaal inaad kiradii diido salaadaadana lagaaga aqbali maayo mar kale ugu dambayn haddaad 5 cisho gudaheed ku soo bixin weydo guriga maanta laga qufulay iyo kaalinta shidaal iyo meherada ganacsi wasaaradda hawlaha guud inay ka saarayso maanka ku hayso